السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان خيرت رجع أكاديمي يعدو لفريقن سو gaari doona waan wada salaamayaa. Waxa maanta aanu bilaabi doonaa casharkeennii labaad ee taxanaha IQ option oo maanta noqon doona sida loo furto account deema ah iyo sida loo isticmaalo platformkan IQ option. Inagoo isku dayi doona inaan account deema furano aanan sharaxno sida loo isticmaalo platformka IQ option. casharka hore waxaan kusoo qaadanay maxay IQ option inagoo ka hadlay taariikhdiisa halkuu ka yimiday waxa uu yahay. marka casharkan labaad taxanuhu wuxuu noqon doonaa sida loo furto account deema ah iyo isticmaalka platformka wuxuu ka kooban yahay dhexdiisa iyo sida loo isticmaalaba. marka haddaan hore u galo waxaan soo kaxsan doonaa ama soo furan doonaaba kolba browserka noogu jira. haddana waxay ugu jira oo ii furan Chrome. marka Chrome baan soo kaxsan doonaa sida arkiisinba bartaasi search box-ka waxaan ku qori doonaa IQ option baan ku qori doonaa. marka enter baan taaban doonaa sida arkiisinba results-iga waxay soo baxay dhowr results ay soo baxay results fara badan. marka ka ugu horeeya maaha waxaan tagi doonaa ka labaadi ee verify ee calaamada verification ay dul saaran tahay. sida arkiisinba ka labaad baynu tagi doonaa. marka kaasba toos noo gelin doonaa bartaan ka sameysanayno maxaan ku raadayay account-keena. marka enter baan ku dhuftay waxaa noo soo bixi doona website-koogii IQ option uu lahaa ee official-ka ahaa waa noo soo baxay sida arkiisinba sidan buu noogu soo bixi doonaa. marka inaga waxaan tagi doonaa amaba aan ku dhufan doonaa login ku dhufan mayno. login waa qofku markuu account leeyahay uu galayo weeyaan. waxaan ku dhufan doonaa qoran tahay amba isdiiwaan geli weeyaan. enter baynu doonaa barta ugu horeysa hadda noo soo baxday waxa weeyaan waa username. barta ku xigtaana waa last name-kaaga iyo waxa lagaaga baahan yahay email iyo waxa lagaaga baahan yahay password. bes intaas baa lagaaga baahan yahay stepka koobaad si aad u furto account deema. marka haddaan idin xasuusiyo first name-kaaga waa inuu noqdaa hadhow tolo markaa reelkaaga verify gareynaysid wuxuu kugu xiri doonaa inaad kaar gashatid buu kugu xiri doonaa amba license amba passport amba dhalasho. marka magaca aad ku qoratid waa inuu magaca kaarkaaga aad shakhsiyan u leedahay inuu mar walba ahaado weeyaan. waayo hadduu hal erey hadduu imika kale cabdi oo kale hadduu cabdi u qoran yahay kaarkaaga ama baasaboorkaagu aad kana ee ka dhigtid uu ku diidayaa marba kuu soo celinayaa. marka haddaad account-kan ka damacsan tahay inaad hadhow tolo reelka ku isticmaashid oo hadhow tolo verify gareysatid waa inaad ku isticmaashaa aad ku ekeysaa magacaaga iyo magacaaga amba meesha dhalashada ka haysatid amba warqada ka haysatid amba lisiga haysatid magaca ku qoran iyo magacaad ku qoraysid IQ option-kan isku mid noqdaan baa marba muhiima. oo haddii aad hadhow tolo rabtid inaad asla account-kaad samaysan si aad reel u bedelatid. marka account-ka deemada marka ugu horeysa waxaan gelinaa magaca ugu horeeya waxaan iska gelinaa Xasan. magaca labaad ama last name-ka waxaan gelin doonaa Abdi baan gelin doonaa. waxaan gelin doonaa email amba phone number. markaan hadda email baan gelinayaa waxaan gelin doonaa email-kan academy11@gmail.com. marka password-kana waxaad gashan doontaa password adag maadaama uu waxaan yahay wax dee hantidaadii ay ku dhex ooleyso. marka password adag baan gashan doonaa. waxaan ku dhufan doonaa agree and continue. marka waxaan ku dhufan doonaa open free account. marka enter baan odhan doonaa. sida arkiisinba wuxuu hadda toos noo geyn doonaa ama uu noo furi doonaaba account-keenii. waxaa gabayar sugan intuu install gareynaya
sida wada arkaysiinba account buu sidaa noogu furay deema ah. markaa wuxuu ku leeyahay halkan 10,000 baa mar walba lagu siinayaa si aad accountka deemada aad ugu isticmaashid, aad ugu baraadgaraysid, aad ugu baratid, aad mar walba isku daydid inaad yacni aad la qabsatid ambaba aad ku tijaabis istaraatiijiyada waxaaga 10,000 mar buu ku siinayaa. halkan wuxuu ku leeyahay top up amba marka accountka real ka dhigo lacag dhigo ku leeyahay. marka anaga waxaan 10,000 baan insha Allah qaadan doonaa maadaama kan kana deemay. inta baan ku dhufan doonaa samba ku soo bixi doonta marka ugu horeysa ee aad furatid ambaba aad gashatid account deema ah website-ka aad ka samaysatid. marka sida arkaysiin waxa noo yaala percentage oo ah few simple steps to become a real trader bukuri. wuxuu ku leeyahay step koowaad oo soo furano create account, select an asset you like buu leeyahay your first forecast. marka wuxuu ku leeyahay ku dhufo suuq ugu furmo saddexaas uu noo furmay sida arkaysiin inaan galmo doonay maxaan ugu haro kaliya waa email-kan soo gelinay markaan sameysana accountka umba hadda nagu haray marka 60% marka soo sameysana accountkeenii kii deemadaha xataa reelka waxa 40% ma noo dhanaanaya. markuu inta aan xagga marano waxaan tagi doonaa sayno staforkan uu si verify gareeno email-kan gelinina. marka waxaan si toos u tagi doonaa email-keena gmail-keena sida wada arkaysiinba waxay soo direen fariin bay soo direen taasoo ku verify gareyn doonaa accountkayga deemada. markaas aad arkaysiin waxaan ku dhufan doonaa confirm email sidoo noo verify gareeyo accountkeena deemada. activation process buu ku leeyahay wali process ku jira buu ku leeyahay ka activation was successful, you will be redirected in 5 seconds buu ku leeyahay. sida wada arkaysiinba waxaan hadda furanay accountkeenii deemada ahaa anagoo si dhammaystiran u furanay. markaasaanu platformka u sharaxno waxaan isku dayi doonaa inaan soo downgradeysano ama soo dejisano appka ama platformka IQ option. marka sidee loo soo dejisanayaa way su'aashu tahay waxa aynu tagi doonaa barta ay ku qoran tahay maxaan ku rahdaa nooca aan ku dhufan doonaa barta download app ku qoran tahay baan ku soo dhufan doonaa maxaan for trader baan ku dhufan doonaa traders halka ay download app ku qoran tahay baan ku dhufan doonaa. sida arkaysiinba waxaa noo soo baxay Windows ay ku dhex jiraan Windows ka looga downgrade iyo Mac lagu downgrade iyo Android ka laftarkiisaba iyo maxaan ku rahdaa iOS ka qofka isticmaalaan baa iPhone system. marka anaga waxaan khuseeyo waxa weeyaan waa Windows ka maadaama aan Windows isticmaalayo wuxuu ku leeyahay operating system ka laga baahan waa Windows 7 haduu ku jiro 8 haduu ku jiro 10 haduu ku jiro intaaba ku shaqeynaya buu ku leeyahay. RAM-kaaguna waa inuu 2 GB mar walba ka badnaada buu ku leeyahay. hard disk-gaagana inuu kaaga badnaado mar walba lagu leeyahay 330 MB. marka aan ku dhufano sound download aan ku dhufano si toos ah ugu bilaabi doonaa doolaraha platformkan baabkan insha IQ option. sida arkaysiinba waxaa noo bilaabay download manager-kayga soo kixi jirta start download baan ku dhufanaa si downloadka noogu bilaabo oo 17 MB wax saas badan ma aha waan sugnaa inta dhamaanaya doolaraha inuu dhameeyay waxaan ku dhufan doonaa open folder saan u soo dejisano sida arkaysiinba waa 2 jeer baan double click oran doonaa si noogu bilaabo. wuxuu leeyahay folderka meesha dhiganaysa install doonno si by default isku sameeyo folderka uu sameeyay meesha dhiganayay markaan sugnaa inta dhamaanaya sida arkaysiinba noo dhameeyay finish baan ku dhufanaa oo soo kaxin doonaa doolaraha. marka hadda waxaan soo gashan doonaa email-kii aan ku soo sameysay password-kii markaan soo sameysay accountka deemada bartan gashan doonaa wuxuu ahaa waxaan ku dhufan doonaa login saan u galo
sadarkiisan buu noo soo kiciyay weli waxaan ugu taagan 80% waxa weeyaan real markaan wax deposit garasano 100% noo noqon doona laakiin hadda uma jeedno deposit xasaraan kale insha Allah ku qaadan doona soo deposit kariyaha marka qof walba soo dejista ambaba akoonka dimada marka ugu horeysan ugu soo bixi doona haddaynu soo daadegno sharaxadeena maba aan soo guda galno sharaxno batamada bartano soo yaala platformka dhexdiisa haddaynu ka horeyno labadan batano xagga noo soo yaala waxa la kala yiraahdaa labadan batano labada kalar kala akhtarka iyo casaanka ka akhtarka waxa la yiraahdaa higher ama buy la yiraahdaa kan casaankana lower ama sell la yiraahdaa mar walba labada batano ee aad suuqa labada jawaab kala diraysid marna aad u diraysid iyo marna aad iibsid u diraysidna marka labadan batamo ugu muhiimsan baan oran karanaa wax xagga noo soo yaalaba maadaama labada batamo ay suuqa labada jawaab kala dirisay yihiin bartan waxa ku soo xigto noo soo yaalo wax profit la yiraahdo profit waxa weeyaan lacagta digad doontid faa'iidada qaad doontid weeyaan oo percentage baa lagu xisaabiyaa mar waa 100% mar waa 90% sadam karkan $9 ba amoonkan oo yaraatan $9 dhigan lahayn bay ka dhigan tahay oo faa'iido lahayn waxaanu qaadan lahayn $7 iyo 65 senti oo 80% kan ba Kenya intaanu qaadano hadduu 100% aan 9 kan dhignay 9kiisa baan qaadan lahayn bartan waxa ku soo xigay isaguna time waxa la yiraahdo expiration time baa la yiraahdaa waxa weeyaan waqtiga trade-ka gashid ambaba inta uu ku dhacay trade-ku weeyaan marka bil misaal oo kale hadan $9 kale hadan buy u galaba waqtiga uu taagna waxa 1 minute weeyaan 1 minute baa marka dhowr iyo 30 second baan ku galay marka isagoo maraya candle-kii markaas aynu candle-kan soo bedelno noo taaragno midda ka soo bedelnay candle-lada nimka line spinooy markaas aan candle uga dhigano waxaan sameeynaa candle spin tagayna waxaan ku dhufanaa chart type-ka candle-kaas aan ku dhufanaa candles kan ugu horeyn ka dhigano sida darkisima candle caadi ah noo noqdo marka candle-kaas wuxuu taagan yahay time-kan wuxuu taagan yahay mar walba time-ka aad ku gashido kan candle-ku intuu dhacay candle-ku waa kaas darkisima waxa shumacadaas baa la candle marka imko kale 1 minute baan ka dhiganaynaa bartaas waxaan ka qaadanaa tagta suuna nooga badbedelin mar walba aan soo dhaweeyno bedelmaya kale marka waxa ka dhigan tahay time-kan wuxuu ka dhigan yahay labadan time inta badan la isku khaldo dadka bilowga time-kan iyo time-kan wuxuu u taagan yahay waxa weeyaan candle time baa dhada waxa weeyaan candle-kan inta uu dhacayo weeyaan iminka halkii minute waxa dhacaya candle saas oo kala dhacay kan 1 minute buu taagnaa kan 1 minute buu taagnaa kan 1 minute buu taagnaa kan 1 minute kan 1 minute buu taagnaa 14 second baa ka 13 second markuu zero gaaro candle-ka formay ka dhigan tahay time-kan markaan sharaxayna isaguna waxa weeyaan waa time-ka aad ku gelaysid weeyaan marka kale haddii aan 9ka ama 9 dhufto bayba dhowr 60 second waxa weeyaan intuu ku dhacayo dhowr 60 second time-kan bay ka dhigan tahay time-kan waxa noo soo yaalay 1 minute baa noo yaalana marka uu dhaco time-ka aanu galnay waxaanu helinaa faa'iido iyo khasaaro labadaba aan ku galeen mar walba helina ay ka dhigan tahay marka labadaas mar walba isku khaldaa dadka ku cusub marka kan waxaan ku sheegnay waqtiga uu ku dhacay candle time baa dhahdaa ama waa waqtiga candle-ku ku dhacayo candle-ka ku furmanayo kana maxaanu nidhi waa waqtigu trade ku xirmayo oo faa'iidada iyo khasaaraha ku kala ogaanayna time-kan expiration time baa bartan sadarkiisa waxa noo yaala waa real-kii account-kii markaad kala tigsbeen deposit marka odaysid hadduu ka dhamaado 10,000 fill up madana safil toban jeeda dib 10,000 kugu soconay sadarkiisa mar walba ka dhamaadaba toban madana bartan hadaba sharaxadan si wadano bartan waxa noo soo yaalo waxa la trade history muxuu ka caawinayaa trade-da soo gashay buu ka caawinayaa inaad aragtid meelaha ka gasho kale inaad aragtid buu ka caawinayaa marka kale hadan ku dhufano yuri chiboeda oo kadan gelini bartan ku kale ku tusayaa xadiga ku gasho ku tusayaa khasaartina faa'iido xaggan aad ka ogaanaysaa marba ka soo trade history xaggan waxa la chart and support baa la oo waxa weeyaan support-ka dad ugu baahan tahay hadduu wax ka raxmaadaan oo kale xagga madka halsa support-ka la halsa koonaysa waxa sayga waxaas baan xaggan waxa la waa chart English chart baa jira stock chart baa jira forex chart crypto charts baa jira
xaggana leaderboardka laga eega wadan walba inta u sareysa laga eega mar walba warward buu ku jiraa marka ninkana weygii inta la sameeyay ii ka dhiganta ninkana ugu sareeyay kuliyeen koobisno kumbu sameeyay weegan xaggan market analysis ba inoo taala isagana oo casharkii koowaad ku soo qaadanay nadi suuqan wuxuu leeyahay market analysis market news market analysis waa kan market kala soo analysis gareey xaggana videos tutorial waxa la yaala oo ku sharaxaya sida baalka kale baygan wuxuu qabto soo sharaxad faahfaahsan weeyaan oo yar ka kooban weeyaan xagga mid kale isagana video tutorial iska soo aanu soo noqon halkan marka doonaysid wax soo gashatid asad sida maxaan ku raabsho oo kale foraga soo kale stock soo kale xaggan baa laga soo gashtaa calaamada ay balastar ku dhufanaysa san hore soo sheegnay casharkiina koowaad waxaanu soo qaadanay nari suuqa waxa qayb ka ah bangiyada dhexe bangiyada gaarka loo leeyahay shirkadaha waaweyn marka shirkadaha waaweyn in qaandeydeen meesha ka dhaxeegno sadarkiisna waa ka Amazon badarkiisin waxaad ka Netflix Apple badarkiisin Tesla badarkiisin Facebook badarkiisin Alibaba badarkiisin shirkadaha waaweyn suuqan qayb ka yihiin ama kamid bihiinba sana shirkado koobaad ku soo qaadanay baradkaalkiisa waa kan shirkado shirkadahan sheegin marka aan soo noqon options keeni marka doonayno options waa digital keenan iyo binary-gan marka aan doonayno inaanu soo gashano laba lacagood marka soo gashano imika AUD USD gaas oo kale marka soo gashano doonayno interman ku dhufanana inta marka ku dhufano lacagtii saas bay noogu soo degaysaa saasaan ku soo gashanay ay ka dhigan tahay haddii doonayno newska san casharkii ku soo sheegnay news buu leeyahay suuqan haddii doonayno newska suuqan inaan ogaano aanu information ka soo ogaano waxaan tagnaa information ku soo dhufana halkan waxa ku yaala waa information kii weeyaan suuqan xagga waxa ku yaala newska suuqa ka jira lacagta newska ka jira bay ku sharaxsan jeeda iyo xagga ku yaalan adoo meel kale aad tagto baahneenba halkan waxa ku yaala technical analysis oo imika wuxuu ku leeyahay summary waa maxay waa salbu ku leeyahay mar strong salbu koornay mar wuxuu ku odhanaya strong buy bu koornay neutral bu koornay sell bu koornay ogal marka aad aragtid suuqa markaad analysis gareysatid markaad cilmiga baratid waxaan inuu yar ku caawiyo confirmation buu ku farsinaya laakiin wax masku haalan kara maaha waayo waxa weeyaan aalado amba qalab la isku geeyay oo lagu dhig marka soo yahay buy soo dhamar ku saayar noqdana soo lagu dhig oo wax de la hoomaha economic events buu leeyahay sadarkiisinba training conditions buu leeyahay marka information kooda maxaa gabad kala soconaysa dollar raxdo marka inta san ku soo gabagabina haduu ila raxdo maanta casharkeena ku saabsanaa caption marka intaas baan ku soo gabagabin doonaa maanta casharkeena ku saabsanaa sida loo furto demo caption looga furto iyo sharaxaadeen koobneed ku saabsaneed batamada waxa qabtaan iyo wuxuu taagan platformka intaas aan ku soo gabagabina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh casharka xigeentan ku kulmi doono salaanta salaamka ka tagay